fanka Soomaaliyeed mihnad uu leeyahay qof aan hibo lahayn kulan waxaan saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka Audiosom waxaynu maanta ka hadlaynaa geeri aan loo taasiyan iyo dhaawac aan la dhayin waa fanka Soomaaliyeed oo noqday mihnad ama xirfad uu leeyahay qof aan hibo iyo hal abuur toona lahayn fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe page-kana like deedna share gare comment nooreb mahadsanid dib u milicsiga fanka Soomaaliyeed fanka Soomaalida waa nidaamka abuuridda qurxinta habeynta iyo soo bandhigidda heesaha Soomaalida ruwaayadaha majaajilooyinka ay dhaqanka ay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed iyo wixii kale oo la halmaala oo ku saabsan suugaan waqti hore dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa leh fan iyo suugaan aad u heer sareysa qani kuwa aqoon iyo xirfad qoto dheer inkasta oo fanka jira maanta uu noqday mid lagu soo bandhigo quruxda qaabka labiska iyo studio-ga duubaya hanaankiisa sareeya ee qaab duubista adigu waa qiso oo ku saabsan xayeysiin oo qura ayna yar tahay micnaha suugaaneed ee uu leeyahay fanka Soomaaliyeed ayaa leh noocyo badan kuwaasi waxaa ka mid ah heesaha qaaciga qaraamiga heesaha jaaska ruwaayadaha majaajilooyinka filimaanta bandhig faneedka qobka ciyaarka iyo guud ahaan madadaalada ku baxda luqadda Soomaaliga inkasta oo sanadahan dambe la casriyeeyay heesaha fanka Soomaalida inta ugu badan waxa la isticmaalaa agab sahal ah sida kabanka gitaarka durbaanka naarsada turumbada sacabka iyo noocyo kale sida badan heesaha fanka Soomaalidu waa kuwa degan dhadhan fiican leh oo inta badan si sahlan loo sameeyo fanka Soomaalida waxaa diyaariya dad badan oo kala duwan kuwaasi waxa ka mid ah abwaanka oo ah qofka sameeya sheeko gabay hees iyo wixii la mid ah la xamiiste fanaan jilaa atore muusigiyahan iyo kuwa kale heesaha Soomaaliga in muusig la saaro waxa bilaabay Allah u naxariistay Cabdilaahi Qarshe habka fanka sida caalamku qiray dhaqanka Soomaalidu wuxuu qani ku yahay fanka suugaanta sameeyska midhaha fanka ayaa mid aad u cajiib badan waxaanu fanku inta badan ka turjumaa nolosha iyo waayaha bulshada dhinaca kale heesaha af Soomaaliga waa kuwa ka duwan caalamka kuwooda oo dhan asalkoodu waxa ay heesuhu u dhacaan hab jidid isku xidhan ah dadka ajaanibka marka ugu horeysa oo ay maqlaan heeso Soomaaliya waxa ay ku qaldaan kuwa Itoobiya Suudaan ama Carabta laakiin waxa markaaba lagu garan karaa laxanka iyo habka ay u dhacayso heestu inta ugu badan heesaha waxa loo garaacaa qalab kala duwan sida kabanka durbaanka turumbada laakiin waqtiyadan dambe waxa inta badan caan ah biyaanada qalabka la afuufo malkad iyo simbaar sumaari fugu buun muufe iyo gees goodir qalabka shanqadha shagal qalab biro la isku garaacayo ah shambaal alwaax la tumayo shunuuf tenagiyo noocyada kale ee la isticmaalo waxa ka mid ah shareero kinaadha madhuube iyo seese taariikhda guud ahaan heesaha aan maanta naqaano ee af Soomaaliga lagu qaado waxa ay soo bilaabeen 1930 taas macnaheedu ma aan in dadka Soomaalida heesta aysan aqoonin wixii ka horeeyay 1930 laakiin waxa waqtigan bilaabmay heesaha leh muusiga kabanka durbaanka turumbada iyo wixii la mid ah heesaha la qaadi jiray ka soo bilow 1930 ilaa laga soo gaadho 1970 waxa sida guud loo yaqaan qaraami halka kuwa waqtiyada 70-yadii ka dambeeyay isla markaana kabanka loo garaaco loo yaqaan qaaci noocyada fanka Soomaaliyeed waxa ku jira noocyo badan kuwaasi waxa ugu caansan qaraamiga qaaciga jaaska saarka ruwaayada majaajilada filimaanta iyo wixii kale ee la halmaala fanka iyo fagaaraha maanta fanka Soomaalida maanta gaar ahaan heesaha iyo ruwaayadaha ayaa ka tagay martabadii ay bulshada Soomaaliyeed u joogeen horay waxa ay u ahayd heesto mid ka warranta xaaladda nolosha aadanaha waxa ay ahayd mid laga faa'iido suugaan kana turjunta dhacdo markaasi taagan oo xasuus u noqota jiilka markaasi joogay sooyaal ay dib u raacdaan u noqota jiilka dambe ruwaayaduhuna waxay ahaayeen kuwa taas la mid ah inkasta oo iyagu ay ahaayeen kuwa wacyiga iyo dareenka dadka lagu toosiyo waqtigan la joogo waxa aad moodaa fanka Soomaaliyeed in uu dhex galay ama uu noqday mid laga soo munguuriyay fanka iyo dhaqanka reer galbeedka ee ka fog dhaqanka suuban ee Soomaalida iyo kay diinta Islaamku ayna fadhay waxa uu noqday goob modelka labiska rag iyo haweenku ay ku soo bandhigaan ma jirto erayo la oran karo waxa ay soo gudbinayaan taariikh dhacday ama waxa laga dhadhansan karaa wax oo suugaan ah ama xigmad ah intaas iska badaaye waxaad arkaysaa inuu noqday fankeeni mihnad uu ku xamaasho qof aan hibo
hal abuur, shaqo iyo suugaantoon aanay habeenna xitaa u dhixin. Waxaa intaasi dheer inuu noqday fankeennii Soomaaliyeed wasiilad lagu iibiyo jidhka. Waxaad arkaysaa haween Soomaaliyeed oo islaamnimo sheeganaya oo inta iyaga oo mariye aanan wadan muuqaal la iska soo duubaan ku baahinaya baraha bulshada. Ujeedkuna aanu ahayn inay ka tagaan dhaxal wanaagsan, balse uu yahay in muruxsanaanta ay ku helaan magac, daawadayaal fiicanna ay ku soo jilaabtaan iyo inay isbuucyo noqdaan sheekada baraha bulshada. Haddaba waxaa la joogaa waqtigii dadka Soomaaliyeed ay ka biyadiidi lahaayeen waxa socda. Waxaa khatar galay dhaqankeennii, waxaa lumay xishoodkii, waxaa la faafinayaa fariimo aanan meelna ka soo gelin diinteenna Islaamka, dhaqankeenna iyo haybaddii ay Soomaali lahayd. fadlan ugu dhiirigeli subscribe iyo share deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh. mahadsan.